magaalada tani gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa soo gaaray wafdi oo hogaaminayo musharaxa madaxweynenimo ee Puntland Maxamed Siciid Xirsi Morgan oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanada Puntland. Soo dhaweynta musharaxa madaxweyne Morgan waxaa ka qayb galay maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo isimada cuqaasha waxgaradka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan kuwaas oo soo dhaweynta ugu sameeyay duleedka waqooyi ee magaalada tani gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay musharaxa madaxweynaha Puntland Maxamed Siciid Xirsi Morgan. bulshada dhamaanteed dadayeen dhalinyaro iyo haweenba soo dhaweynta inuu soo dhaweeyeen gobolka mudug sababta soo dhaweyntaas waxa sabab maadaama aan ku dhawaaqay inaan ahay musharax 2019 soo dhaweyntaas waxay saan u tahay in ay tahay aydaad lagu ayadayo inaan musharax noqdo 2019 sidaa darteed waxaan u soo jeedinayaa dadkii soo dhaweeyey inaan musharaxnimadeedu astaanteedu tahay amni horumar iyo cadaalad taas inaan astaanteeda doorasho taas ayaa astaan u haddee sidaa darteed waxa doortaa waa xildhibaanada waxaan rajaynayaa inay noqdaan xildhibaano kala xusha musharaxiinta kii ku habboon madaxweynuhu dalka ka noqoto 2019 iyay ku xiran tahay waxaan leenahay idinkuna kala xusha anuu idima oranayo aniga ugu fiican musharaxiinta laakiin ninka ay tiraadaan dalkii dadka waxba anfici karana idinku xiran tahay musharaxan madaxweynaha ayaa maalmihii la soo dhaafay lagu soo dhaweynayay qaybo ka mid ah deegaanada Puntland waana musharaxii madaxweynaha ee Puntland ee ugu horeeyay ee soo gaara magaalada tani gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Morgan ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato waxgaradka degmada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug. Cabdulaahi Khayr Maxamed Cabdulaahi Yare Honkebel TV gaalkacyo.